iskuulla kala duwan ka soo baxay oo maaha keliya halkan ardaydan aad arkaysaana dadka wax soo baray ee soo tabaabusheeyey ee halkan soo gaarsiiyey wadda waa dugsigan ardayda imika joogtaay waxa weeyaan kuwa mas'uuliyadeeda iyo xilkeedu uu saaran yahay gobolkan ee dugsigan iyo wasaaradda weeyaan laakiin mushkiladu weyni waxay ka imanaysaa oo ka dhacaysaa waxa weeyaan ardayga iskuulkan ka baxay ee haddana sheeganaya inuu iskuulka leeyahay taasina waxay u baahan tahay guddoomiye in wax laga qabto ayay u baahan tahay oo laga marmaana مسؤوليتنا waxay inagu ku eegtahay iskuulka dhexdiisa iyo wixii ku xidhan annaka iyo wasaaraddu sidaan la tacaalino marka taa go'aankeeda annaga iska leh laakiin wixii dibadda ka imanaya annagu awood ma hayno booliisna uma haysano gaar uma samayn karno na ilaaliya waardihii dhibaato qaba annaga lafteeda taragnaga wuxuu waaweyn laga awood badan baa jira marka waxa laga maarmaan wixii dibadda naga imanaya weerar marka waxaan ka codsanaa barasaabka in nala socdo arinta laakiin intii mudaharaadaysa dad dhammaantood soo eegtaan dhammaan waxay wada haayeen saddex macallin kuwii halkan wax ka dhigaya iyo kuwii jaamacadda dhamaystay qaarkood waxbarasho lagu haleyn karin oo qaarna ay dhigtaan jaamacadda Camudiyad wali ayna jaamacaddii inay dhamaysan halkan markaa ka sheegay bal macallinka ama maamulaha ay ka cabanayeen macallimiintaasi saad arkayseen macallimiinta markaan weydiinay waan la joogay lahayd waa kuwii iyaga wax soo baray maamulaha muddo 20 sano jooga meel kasta loo geeyo sign language kada macallimiinta wax dhigaysay waa kuwii iyaga ka saaray dugsigan hoose dhexe uga bilaabay ilaa iyo jaamacad hadday maanta leeyihiin waxa la noo keenay macallimiin cusub oo farta garanayn wasaaradda qaldan wasaaradahan horta macallinka dhagaha la iyo ka dhagaha qab waa isku sharci ninka macallina ee isagii intuu mudaharaaday la maamulaha naga bedelo waxa intuu waraaq soo qoray in wasaaradda waxbarashada uu yimaado wuxuu ka cabanaya hadla idinkuna saxaafadda waxa liiga baahan inaad xaqiiqda raadisaano maanta waxaan halkan joognaa waxa weeye dugsigii dhagolayaasha xafiiska maamulahan fadhina duraat waxa dhacay mudaharaad ay sameeyeen ama kacdoon yar ay sameeyeen dad dhagolayaali kadib wuxuu ku saabsanaa ay ka cabanayeen dugsigan buuxa iyo maamulihiisa anaga markay noo yimaadeen qayb iska soo qaybiyay baan ku nidhi dugsigan iyo maamulihiisa ayay ka cabanayeen dabeedna saaka waxaanu nimi aniga iyo gudoomiyihii waxbarashadu dugsigii baanu nimi fasalada wadarkiisana waanu maray macallimiintiina waanu aragnay waxaa halkaga jira 6 macallin oo dhagolayaasha iyo 10 kale oo dadka caadiga dhiga qaba macnuhu waxa weeye fikirkii xagga yaalana waanu qaadanay koodina waanu qaadanay isniintana waxaanu u ballanay inaan xal go'aan xal gaadhno oo aanu iyagii iyo annagu intaanu isu nimaadno wixii khalad leh aanu khaladkooda u sheegno maanta بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا دمان مرتي شرفتا ميديها قدوميها وحبرشدا برسابكا maamulka iyo macallimiinta runtii anagu waxaan ka soo gurmanay Hargeysa aniga iyo gudoomiyaha tifidka ama TV-ku waxa loo yaqaan Jimcaale waxaan ka dhimanay heer qaran wasaaradda waxbarashada ujeedada nibadna waxay ahayd in wax dejino oo hawsha darha dhacday aynu isla wada eegno runtii gudoomiyahana hore waan uga wada soconay hawshaasi inuu madartay mar horena si fiican u galay imikana waxaan rajeynayaa in si fiican u dhamaato dadku inay noqdaan madax iyo mijaay noqdaan oo dawladnimada ay noqoto kana dhagool iyo kana maxay aanay noqon laakiin la eego nidaamka hadii wax ka khaldan yihiin iyagana la eego hadii dadka dhaqaaqayaasha ay wax ka khaldan yihiin la eego taasi ay arinta ku jirtaa runtii si fiican bay iskuulku u shaqeynaya imku waa iskuulkii waxaan joognaa wixii iskuulka dibadda ka imanaya insha Allah waa laga qaban wixii iyagu xaq leeyihiin waan siinayna waxaan lahayna siinayno marka aad iyo aad buu mahadsan gudoomiyaha maanta waqtigiisa oo dhan halkan ku qaatay barasaabka maamulaha iyo gudoomiyaha tifidka Jimcaale oo wada soconay heer qaran idinka miidiyaana aad baan salaamaya hawshaasina sidaa ma ahayna sidaa maanta baynu qaadanay iskuulkii u shaqeynayo aad iyo aad baa mahadsantihiin